بسم الله السلام عليكم سلاشان أسابتي قالي وحرجنا في عتين سود هذا هدفك فوق يهيكسي سريع نولش قفك dhalinyarada ah saaxiib hadii aan maanta ku weydiiyo 10 sano kadib meesha aad rabtid noloshaada inaad joogtid ma haysataa jawaab cad okay 5 sano kadib ma haysataa jawaab cad dhalinyaro fara badan ma fashilmaan sabab awood la'aan darteed waxay fashilmaan sababtoo ah jiho la'aan hadii aadan lahayn meel aad u socotid jiho nololeed dabal walbo imaadana ku qaadanayso waxa tahay jiho la'aan ee matid awood la'aan su'aasha ugu weyn ee noloshaada loo baahan yahay inaad ka jawaabtid ma ahan yaad tahay ee waa yaad rabtaa inaad noqotid qof noocaad rabtaa inaad noqotid noloshaada qalad kuma lihid nolosha hadda aad ku jirtid laakiin waxaad qalad ku lahaan doontaa 5 sano kadib ama 10 sano kadib nolosha aad ku jiri doontid mas'uuliyadeedana adiga ayaa qaadan doontid oo adiga ayaa iska leh qof walba waxa uu leeyahay riyo qof walba waxa uu leeyahay hami laakiin dadka guuleysta iyo dadka qoomamaya waxa kala saaraya waa hal shay oo kaliya aragti fog hami sare hiigsi fog qof kasta oo leh hadaf fog wuxuu arkaa wax dadka kale aysan arki karin waxa uu sameeyaa wax dadka kale ayna sameeynin waxa uu dhaqmaa dhaqan dadka kale aysan ku dhaqmaynin sababtoo ah waxa uu muuqata meel dadka kale aysan u muuqan ugu dambeyntiina waxa uu gaaraa meel dadka kale oo dhan aysan gaarin sababtoo waxa uu sameeyay wax dadka kale badankood ayna sameeynin ku soo dhawaada videogeena maanta waxaan uga hadlaynaa awoodda qarsoon ee qaabeynaysa ama bedelaysa mustaqbalka dhalinyarada hadafka fog iyo hiigsiga sare ee nolosha ku soo dhawaada videogeena maanta waxaa jiray laba wiil oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo saaxiibo ahaa waxay ka wada imaadeen xaafad isku mid ah labadaba waxay lahaayeen fursad isku dhow iyo nolol isku qaab eg mid walba waxa uu haystay 24 saac sida dadka caadiga oo kale mid waxa uu ku noolaa maanta midka kalena waxa uu ku noolaa maanta isagoo ka fikiraya qorsheynayana beri midkood waxa uu isweydiin jiray maxaan maanta samayn karaa si aan maanta ugu raaxaysto maanta maxaan ku raaxaysan karaa kan kalena wuxuu isweydiin jiray maxaan maanta samayn karaa si aan beri u guuleysto 10 sano kadib mid wali waa cabanaya oo calacalaya midkii kalena dadka ayuu shaqaalaysiinaya oo waxa uu noqday ganacsade guuleystay farqigu ma ahayn aqli mana ahayn nasiib balse waxay ahayd aragti fog iyo hiigsi sare ee nolosha hadafku waa wax aad rabtid inaad gaartid meesha aad doonaysid noloshaada inaad gaarsiiso waxa loo yaqaanaa hadafka hiigsigu waa rabitaanka weyn ee qofka qalbigiisa uu ku haayo oona ah aragti sare oo mustaqbalka ku saabsan aragtida fog waa kartida uu qofku ku arki karo kuna qiimeyn karo mustaqbalka ka hor inta uusan gaarin kuwaasoo la isku daray waxa ka dhalata guul waa natiijada ka dhalata dadaalka joogtada ah iyo jihada saxda ah taariikhda bani aadamka horumarka ugu weyn waxa horseeday dad laha aragti ka weyn waqtigooda qofka waa inuu ka fikiraa wax ka baxsan waaqiciisa waa inuu arki karaa oo lahaan karaa aragti fog kuwaasi waa dadka qaabeynaya mustaqbalka soo socda saynisyahanada culimada dhaqaaliyahanada ganacsatada hal abuurayaasha iyo hogaamiyaashuba dhammaantood kuwa dunida bedelay waxay lahaayeen aragti fog iyo hiigsi sare cilmi baarisyo badan oo dhinaca cilmi nafsiga iyo horumarinta shakhsiyadda ayaa waxay muujiyeen in dadka leh yoolal cadcad ay leeyihiin kalsooni fara badan dhiirigelin joogto ah wax soo saar sareeya fursado joogto ah iyo guulo fara badan daraasaadyo fara badan oo laga sameeyay jaamacado caalami ah ayaa sidoo kale waxay muujinayaan in qorista yoolalka iyo dib u eegistooda joogtada ah ay kordhiso suurtagalnimadooda ah qofka inuu gaaro yoolalkiisa kuna guuleysto hankiisa iyo himiladiisa qoraalo fara badan iyo artikalo fara badan ayaa waxay muujinayaan in guusha dhabta ah aysan ka bilaabaneyn meesha aad joogtid balse ay ka bilaabato sawirka aad ku haysatid maskaxdaada aragtidaada fog iyo meesha aad rabtid inaad gaartid waxa kuu muuqda hanka kuu muuqda hiigsiga noloshaada aad ka leedahay iyo mustaqbalkaaga dadka leh aragtida cad iyo hiigsiga fog waxay awoodaan inay u adkaystaan caqabad kasta oo ka hor imaada hadafkooda iyo hiigsigooda waxayna arkaan sababaha faraha badan ee ka dambeeya dhibaatada ay maanta wajahayaan inay u dambeyn doonto guul bashbash iyo barwaaqo islaamku wuxuuna barayaa in riyooyinka waaweyn aysan ku filnayn hadal iyo in laga sheekeeyo balse ay u baahan yihiin dadaal karti samir iyo joogtayn si loo gaaro oo loogu guuleysto qofka muslimka ah ma noolaado hadaf la'aan marka uu mid gaaro waxa uu hiigsadaa mid kale wuxuuna had iyo jeer ku socdaa horumar joogto ah maxay dhalinyaro fara badan ugu fashilmaan hadafkooda sababtoo ah waxay leeyihiin hadaf balse ma lahan qorshe maalinle ah waxay doonayaan guul degdeg ah
taasina ma dhacayso. waxay ka baqayaan guuldarada iyo fashilka. waxay ku mashquulaan nolosha dadka kale. waxay lumiyaan waqtigooda iyo enerjigooda. cagsiga, maxay dadka guulaystay ay sameeyaan? waxay leeyihiin aragti cad, hami iyo higsi fog. waxbay akhriyaan, waxbay qorsheeyaan, way samraan, way joogteeyaan, ficil ayay la imaadaan. waxay bartaan xirfado cusub, naftooda ayay horumariyaan, iyo sidoo kale waxay maamulaan waqtigooda. midaasi oo u horseedaysa guul joogto ah, halka kuwa kale ay waqtigooda iska lumiyaan si maalayacni ah. bal aan u soo laabano waaqica dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta. dhalinyaro badan maanta waxay leeyihiin awood aad u weyn. waxay haystaan internet, waxay haystaan fursado, waxay haystaan aqoon. jaamacadda ugu weyn ee dunida oo ah YouTube-ka. waxayna haystaan fursado aad u fara badan iyo doorashooyin fara badan oo kala duwan. laakiin dhibaatadu ma ahan fursadda, balse waa jihad la'aanta ay noloshooda ka haystaan. ma lahan hadaf, ma lahan higsi fog. dhalinyaro fara badan waxay garanayaan keliya waxa ay maanta rabaan si ay ugu raaxaystaan waqtigooda iyo maalintooda, balse ma garanayaan qofka ay rabaan inay noqdaan 5 sano kadib, 10 sano kadib. ma oga nolol noocay sugaysa inay ku noolaadaan. ma qorsheeyaan oo kuma fikiraan midaas. dhibta ugu weyn waa midaas. qofkii fahmo oo ku baraaruga wuxuu qorsheynayaa noloshiisa soo socota, wuxuuna fahmi doonaa, uu ogaan doonaa nolosha uu rabo inuu ku noolaado. aan ku weydiiyey adiga 10 sano kadib nolol noocay rabtaa inaad ku noolaatid? qof noocay rabtaa inaad noqotid? ma ogtahay oo ma kuu muuqataa shakhsiyadaada 10 sano kadib? noloshaada ma u jeedaa? ma kuu sawiran tahay? dhalinyaro, waxaa laga yaabaa maanta inaan ku noolnahay xaalado fara badan oo aad u ah. nolol qalafsan, stress, jahwareer, buuq, walwal iyo walbahaar. waxaa laga yaabaa inaad dareemaysid dib u dhac. waxaa laga yaabaa inaad isleedahay waqti badan ma haysatid, waqtiguu kaa lumay oo waad isqasaarisid. waxaa laga yaabaa inaad joogtid qus iyo qowmamo. laakiin runta ayaa ah, inta aad neefsanayso albaabada fursadu ma xirna, mana xirmaan. qof kasta oo aad arkaysid, aad daawanaysid oo maanta guulaystay, wuxuu mar ahaa qof jahwareersan, walbahaarsan oo wareersan. qof kastoo maanta hormuud kuu ah oo aad isleedahay qofkaasi nolol fiican ayuu ku nool yahay, wuxuu ahaa qof adiga kula mid ah, soo maray waxaad hadda ku jirtid, ku soo jiray noloshaada oo kale. farqiga keliya waxa uu go'aansaday inuusan isdhiibin. ha yaraysanin awoodda hal go'aan oo sax ah oo loo qaatay si sax ah, laguna qaatay waqti sax ah. isbeddelka dhalinyarada noloshooda ku suganba waxa keenay waa go'aankaasi saxda ah. hal go'aan ayaa bedeli kara maalintaada, bedeli kara bishaada, bedeli kara sanadkaaga iyo guud ahaan noloshaada. ha yaraysanin awoodda go'aamada maalinlaha ah. si aad u beddeshid hal sano oo ka mid ah noloshaada, qaado hal go'aan oo ka mid ah noloshaada maanta, si aad isku beddeshid guud ahaan noloshaada. hadda waxaan kula wadaagay 5 talaabo oo ficil ah hadda aad samayn kartid. ha dibdhigin, hadda bilow. qodobka koowaad, hadda qor 5 sano kadib noloshaada meesha aad rabtid inaad gaartid. 10 sano kadib nolol noocay rabtaa inaad ku noolaatid. qof noocay rabtaa inaad noqotid. qoro, hadda ku dhaqaaq. qodobka labaad, samee yoolal sanadle ah, 2 sanadle ah, 5 sanadle ah, kuwaasoo kugu hogaaminaya hadafkaaga weyn ee fog. qodobka saddexaad waa akhri, maskaxdaada kori. noqo qof maskax furan. buugaagta akhri, quraanka akhri, maalin kasta 10 bog akhri. waa akhrisku bixi si aad maankaaga u quudisid, mustaqbalkaagana uu kugu ifo. qodobka afraad, baro hal xirfad oo suuqa qiimo ka leh, adiga wax kugu soo kordhinaysa, dhaqaalena ku soo gelinaysa. qodobka shanaad ee u dambeeya, la saaxiib dadka leh himilooyinka waaweyn sida adigoo kale. ka dhex bax kuwa jahwareersan, isku wareersan, isku buuqsan, kuwaasoo aadan jeclaan lahayn noloshooda oo kale inaad ku noolaatid. raadso oo la saaxiib dadka aad jeceshahay noloshooda oo kale inaad gashid, shakhsiyadooda oo kale inaad yeelatid. saaxiibadaada ayaa qaabayn doona mustaqbalkaaga. saaxiib noloshaada waxaa qaabaynaya maskaxdaada iyo aragtida aad ka haysatid mustaqbalkaaga. 2 jeerba mustaqbalka waa uu imaanayaa oo waa la gaari doonaa haddii naftan uu eebbe inoo daayo. sidaas awgeed, ma ogtahay qofnimadaada inta kuu soo socota? noloshaada maanta ku noolow, balse qorshay oo ka fikir beridaada. qof kastoo hadda aad la dhacsan tahay noloshiisa uu ku nool yahay waxa uu mar soo ahaa adiga oo kale, kaliya waxa uu qaatay hal go'aan oo adag. si dadka beri ku daawan doona ay kula dhacaan una daawadaan guushaada, go'aankaaga adag ee maanta adiga ayuu ku hor yaalaa. qaado hadda go'aankii ugu adkaa ee noloshaada aad ku bedeli lahayd, mustaqbalkana aad ku qaaban lahayd.
sawiro oo qorsheey noloshaada shanta sano ee soo socota aad rabtid inaad ku noolaatid u dhaqaaq joogtay ficil la imow waxaan ku balan qaaday inaad gaartid guushaada ilaahay ha kula garab galo dhammaantan ilaahay hana caawiyo insha allah AC community ahaan waxaan aaminsanahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kaliya jahal la'aan balse aysan ahayn awood la'aan saaxiibayaal noloshan aan jihaysano mustaqbalkeena aan qaabaysano inaga ayaa ka mas'uul ah wax imaan doona mustaqbalka noloshaada adiga ayaa ka mas'uul ah tayda aniga ayaa ka mas'uul ah mas'uuliyadda noloshan aan qaadano waxa inoo imaan doona si aan mas'uul uga noqono haddii aad u baahan tahay naftaada inaad horumarisid aad noqotid qof jiha leh hadaf leh aragti fog nolosha kale nagu soo biir nala kor oo nala hormar waxaan nahay jiilka dhalinyarada mustaqbalka ee soo socota guulaystayaasha beri ha seegin oo ka mid noqo jiilkan subscribe sar like sar video una share garay saaxiibadaada iyo walaalaha kuwa adiga kula mid ah si aan u noqono guulaystayaasha beri kuwaasoo la daawan doono loona sacbin doono guushooda insha allah haddii aad rabtid inaad ka mid noqotid jiilka raba inay raad fiican kaga tagaan nolosha iyo dunida taariikhna ku reebaan ku soo biir SG community ha seegin fursadan ha seegin jiilkan waxaan rabnaa meel weyn waxaan u socnaa wax weyn aan wada korno aan wada horumarno insha allah waxaan noo balanaa videoga insha allah waxaan rajeynaa inaad noloshaada qaabaysatay ayna ku sawiran tahay nolosha mustaqbalkaaga ku soo socota waxaan noo balanaa videoga insha allah kulanti dambe waxiisa leh maca salaam